madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka badbaaday isku day dil kadib markii ciidankii taabacsanaa Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagreen ay hubiyaal ku soo weerareen filada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ku sugnaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaan kula wadaagi doonaa markaasi ciidanka Laftagreen oo ilaa iyo 4 hubiye si toos ah ugu soo weeraray filada Koonfur Galbeed oo ay ku sugnaayeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamza Cabdi Barre iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. iyadoo caawa magaalada Baydhabo uu markaasi isaga soo cararay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu dib ugu soo laabtay gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. waxaan kula wadaagi doonaa markaasi hubiyaashan oo markaasi ay ka dhasheen qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac leh oo markaasi soo gaaray dad shacab ah oo ku sugan gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. ciidankii taabacsanaa Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagreen ayaa fariin toos ah waxay ka soo dirayaan duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyagoo la arkayay muuqaalo markaasi in iska duubayaan oo ah marka ay hubiyaash soo ridayeen kuwaas oo ay ku birtilmaamaysanayeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. waxa ay leeyihiin in dalkiisa uusan nabad ahayn sidoo kalena markaasi aysan amaan ahayn ayaa waxa uu ku soo duulaya markaasi dhulka Koonfur Galbeed Soomaaliya mana aqbalayno ayay leeyihiin ciidankii taabacsanaa Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagreen duulaanka uu soo qaaday markaasi madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. waxaan kula wadaagi doonaa markaasi qatartii ugu weyneed oo markani uu caawa ka badbaaday madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isagoo haatan markaasi dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. waxaana lagu soo waramayaa in maalimaha soo socdana ay markaasi dib ugu soo laaban doonaan wufuudii maanta gaartay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. balse caawa tabinteena tooska ah ee markaasi intaan u gudagalin daawaday haddii ay tahay marka kugu horeysay aan soo boqoto fadlan YouTube-kana subscribe saar oo gambareelka furo muuqaalkana like saar siina share garay wixii fikirkaaga ahna qaybta hoose ee faalada noogu reeba. waad ku mahadsan tahay daawashada iyo sidoo kale rajaanqaadka wararkeena mahsani daawade. haddii aynu ku bilowna caawa qodobkeena ugu horeeya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ka badbaaday markaasi isku day dil oo markaasi ay doonayeen in lagu qaarijiyo kuwaasi oo markaasi ay abaabulayeen ciidankii taabacsanaa markaasi madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed ninka lagu magacaabo Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagreen. Xasan Sheekh Maxamuudna ayaa lagu soo waramayaa inuu markaasi si degdeg ah ugu soo baxay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. cabsida ugu weyn ayaa ku soo wajahday isagoo ku sugan magaalada Baydhabo kadib markii hubiyaal si toos ah ay ugu soo dhaceen goobtii uu ku sugnaa oo markaasi uu uga qayb qaadanayay caleemasaarka markaasi hogaamiyaha cusub ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Sheekh Aadan Madoobe. markii ay hubiyaashaasi ku soo dhaceen filada Koonfur Galbeed oo ay markaasi wada joogeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, gudoomiyaha gobolka Muungab iyo sidoo kale hogaamiyaasha markaasi maamulada kala ah Hirshabelle iyo sidoo kale maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya ayaa caawa ciidankii Laftagreen waxa u suurta gashay in markaasi hubiyaal dhowr ah ay markaasi si toos ah markaasi ugu soo weeraraan magaalada Baydhabo oo markaasi ay ka socotay qabanqaabadii ugu dambeysay markaasi lagu caleemasaariyay madaxweynaha markaasi ama aan dhahe hogaamiyaha 5 sano ee soo aadan ee leelin doona maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xasan Sheekh Maxamuud cabsidii ugu weyneed ayuu dareemay inta uu noolaa kadib markii hubiyaal toos ah ay agtiisa ku soo dhaceen. waxaana lagu soo waramayaa in isaga iyo fuudiisuba ay ka soo carareen magaalada Baydhabo markaasi ayna dib ugu soo laabteen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. haatan aan kula hadlayo Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ka soo degay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. wajigiisana markii caawa aad fiiriso waxa ka muuqato cabsi aad u xooggan oo markaasi uu kala kulmay ciidankii taabacsanaa markaasi madaxweynaha dowlad goboleedka markaasi Koonfur Galbeed Soomaaliya oo dowladdu ay xoog ugu saartay Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagreen. duleedka magaalada Baydhabo waxa ka socdo abaabul ciidan oo markaasi aad u xooggan oo ay wadaan ciidanka Laftagreen ee ku sugan magaalada Baydhabo banaankeeda. duulaan xooggan ayay doonayaan markaasi in ay si toos ah ugu saaraan Aadan Madoobe oo caawa markaasi ku hoyanaya xira ciidan oo markaasi ay leeyihiin ciidanka Itoobiya. oo waxa lagu soo waramayaa xogaha iyo sidoo kale macluumaadka aan helayno iyo sidoo kale sida ay noo xaqiijiyeen ilo xilkas ah in caawa villa Koonfur Galbeed uu isaga guuray Aadan Madoobe kadib markii madaxweynihii Soomaaliya uu sana isaga cararay. waxa uu isku aaminay ayaa leeyahay caawa uu naftiisa ku aaminay ciidankii markaasi Itoobiyaanka ah ee ku sugnaa gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. hubiyaashan ayaa lagu soo waramayaa in ilaa ay gaarayaan 4 hubiye oo markaasi ku dhacay garoonka magaalada Baydhabo ee Shaati Guduud iyo sidoo kale agagaarka
xerada barwaaqo iyo sidoo kale filada koonfur galbeed halka hoobiyaha afaraad lagu soo waramayo in markaasi uu ka dhacay guri ay leeyihiin dad shacaba waxaana lagu soo waramaya markaasi in shacabka halkaasi ku sugnaa ay caawa markaasi soo gaartay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac leh khasaarahaas oo markaasi ay kala kulmeen ciidankii taabacsanaa cabdicasiis maxamed xasan laftagareen ujeeddada ugu weyn waxay ahayd markaasi oo ay doonayeen ciidanka laftagareen in ay qaarajiyaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud dhagartii ay u maleegayeen xasan sheekh maxamuud caawa si dirqi ah ayuu ugu baxsaday waxaana haatan lagu soo waramayaa inuu dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya laftagareen ciidankiisa ee ku sugan duleedka magaalada baydhabo weerarada kala duwan ay ku soo qaadayaan gudaha magaalada waxay ugu golloon yihiin in ay si toosa ugu saaraan hogaamiyaha cusub ee koonfur galbeed ninka lagu magacaabo sheekh aadan madoobe oo haatan markaasi dowladda federaalka soomaaliya ay ku caleema saartay magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaana la arkayay markaasi ciidamo aad u hubaysan oo markaasi ka soo baxaya furimihii hore ee dagaalka kuwaasi oo ku soo wajahan gudaha magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ciidankan awooddoodu ma qirsana awooddoodu waa ay caddahay hoobiyaal haddii ay noqoto dagaal toos ah ayay marba marka kasii dambeysa ku soo qaadayaan gudaha magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya caawa fariin toosa ayay soo direen oo ay leeyihiin ka warrama dadka ku sugan gudaha magaalada baydhabo hoobiyaashii aan ku garaacnay sidee dareemaysan ayay leeyihiin xasan sheekh iyo xulufadiisa ee markaasi kusoo duushay deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxa ay leeyihiin fariin ama markaasi bilow ayay ahayd hoobiyaashii aan caawa ku soo garaacnay magaalada baydhabo waxaan ugu gol leenahay wax soo wadno ayaa ka weyn oo waxaan doonaynaa in dib ay magaalada baydhabo gacantiisa ku soo laabato madaxweynihii hore ee koonfur galbeed cabdicasiis maxamed xasan laftagareen ciidankii laftagareen oo markaasi ku hubaysan qoryaha kala duwan ee markaasi darindooriga u dhaca ayaa lagu soo warramayaa inay haatan u soo ruqaansadeen dhankaas iyo magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynihii soomaaliya caawa markii uu la kulmay culeys xoogan oo markaasi kaga yimaanayey ciidankii taabacsanaa cabdicasiis maxamed xasan laftagareen waxaa u suurta gashay in isaga oo bad qaba lafihiisuna ay ammaan yihiin uu caawa markaasi ka soo cararo magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya gudaha magaalada baydhabo caawa waxaa ku sugan marka ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre hogaamiyaasha kale ah hirshabeelle waqooyi bari soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir iyo sidoo kale wasiirka diinta iyo qaafta xukuumadda federaalka soomaaliya sheekh mukhtaar rowow cali amansuur iyo markaasi wasiiro kala duwan oo ka tirsan xukuumadda federaalka ee soomaaliya marka waxa ay ka cabsanayaan caawa in iyaguna markaasi hoobiyaal kale ay ku soo weeraraan ciidanka taabacsan cabdicasiis laftagareen oo markaasi awooddooda ciidanka caawa ku soo bandhigay duleedka magaalada baydhabo hoobiyaashii ugu badnaa abid ayayna caawa waxa ay si toosa ugu soo tuureen markaasi gudaha magaalada baydhabo gaar ahaan filada koonfur galbeed soomaaliya hoobiyaasha caawa markaasi waxa ay geysteen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac leh oo soo gaaray dadka shacabka iyo sidoo kale burbur hantiyadeed oo markaasi ka muuqdo sida lagu baahiyey muuqaalo baraha bulshada oo ay muujinayaan in markaasi guryo fara badan markaasi ay si toosa u burbureen dad shacab ah ayaa lagu soo warramayaa in iyaguna naftooda ay ku waayeen halka kuwa kale iyaguna xubnahooda jireed ay iyaguna ku waayeen caawa hoowiyaashii ciidankii laftagareen ay ku soo tuureen magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya aadan madoobe waxa uu leeyahay waxaan ciidanka laftagareen ka saari doonaa duleedka magaalada baydhabo isagoo caawa markaasi cabsidii ugu weyneed ku seexanaya xero ciidanka etoobiya ay ku leeyihiin magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya wixii wararoo ka soo kordho hoowiyaasha caawa si toosa markaasi ciidanka laftagareen ay ugu weerareen magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed daawadayaal waxaad ku daawan doontaan wararkeena kale iyo sidoo kale muuqaaladeena xiga